waa arrin mucjiso ah oo dadka deegaanku ay aad ula yaaban yihiin, horena aysan u maqal dhagaha, dhaayuhula daawal, quluubtayluna aysan marnaba ku fakerin. haddii aad maqli jirtay dhulku wuu wareegaa, waxaa haatan idiin haynaa arrin mucjiso ah oo lagu arkay degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir, taasi oo ah dhulka qayb ka mida oo dhaqdhaqaaqaysa, shanqar aysan dhaguhu hore u maqal luuceeda oo laga maqlayo eriyada. haddaba daawade, haddii aad lagu cusub tahay, fadlan sabskrayb saaro janalkan oo rukumo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena daawada. xaafadda suuq boocle ee degmada Dharkeeley waxaa lagu arkay arrin mucjiso ah sida aad ku soo aragteen ciwaanka hore ee shaashadda kaaga muuqda. waxaa la soo sheegayaa in dhulka uu dhaqdhaqaaqayo iyada oo la maqlayo codad kala duwan oo shanqar ah sida ay sheegeen dadka halkaasi degan. ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ayaa ku sugan goobta oo dadka u diidaya inay arkaan ama ay maraan. dadka qaar waxa ay sheegayaan in mucjisadan ay soo bilaabatay 15kii bishii barakeysneed ee Ramadaan oo aan 2 maalin ka hor soo sagootilay. mid ka mid a dadka deegaanka waxa uu ahlan jalal u sheegay in dadka deegaanku ay yihiin kuwo amakaagsan oo aan fariir ay ku noqotay arrinta mucjisada ah, ayaga oo isweydiinaya in goobtu ay ahayd qubuuro ay ku aasan yihiin, maadaama dhulku la sheego in badankiis uu yahay mid ay suurtagal tahay in horey dad loogu aasay, halka qaar kalena ay niyadda ku laabqabuusanayaan in suurtagal ay tahay in laga yaabo in goobtu ay tahay mid shidaal uu ka dhow yahay, dadkuna ay noqon doonaan kuwa iska dhaansada oo shiidka iyo lacag yarida halkaa kaga hayaama. maxay kula tahay? haddaba daawada, fikirkaaga iloogu dhaaf qaybta commentiska sii la sheergareey muuqaalkan. halkan waa ahlan jalal oo aad uga barateen muuqaalo xiiso badan, xogo dhaxalgal ah iyo macluumaad ku raaligeliya.